بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صباح ونكسن ولا ليال ملك استوى دافها أدوك كتشوكتان بإذن الله تعالى. جمعة مبارك. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذله أنت واجو أبريي عفمات إنه سوكعي أنت وقبل كود عينا وحن إلهي وقبرينا بين خير قبه إيا واسن إلهي نوبريو سبحانه وتعالى ووقت يدي أن اسكبرارو تجرني سيدوك على سليق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا ليال إلهي وحن إنه رجينا سبحانه وتعالى أو إنه بريئة خير لما أنت إنه ينسيه وحال وجرى بشي رجب أفر إيطوان جمعان مانتا شن إيطوان كرجب إلا إيو بشا شعبان إيو بشن قدهان انت هذا بدن با شياطين توحي السنة ولا ليال دلال آد أترى بدن ولبا شياطين تو كلية معها شياطين الإنس والجن أي جرا شياطين دضأ إيو كوا واحد جرا ولا ليال شياطين كتشنكا هاي لبضا النعبو حسكو ديان إن أي وحي أي قصة كران قسان أو مخلوق إلهي أي سامين بدن كويشان سي أو يعني أي عرياميان أو أخردو دي الدنيا دو بايكا عرياميان هدي أي ريسو ولا ربنا waxay ka cabanayaan marka culeysyo walaalahaasi walaalayaal dareemayeen adkaarti ka gaabiyeen marka koow halkan waxaan doonayaa horta inaad ku soo gudbiyo bushaaro ah hadii aad dareento digrigiin aad ka gaabinayso bal hadda digrigan halkan inoogu qoran eega saddex jeer hadaad tiraahdo subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد كلمات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات أتداوع على الصدح جار وحقول أنت أديكو وقت بدن ومالنت كمده ساكو كلا الفردي إلا قبل كوكو دعي سيدات دقرق إلهي سبحانه وتعالى أذو ودي مركا ولا ليال إلهي سبحانه وتعالى وحينا سيدين غني دول بقوات كأكتو سهل أو فضد دقرق ولا ليال هلو قد دالو على الأقل مركا دقرق كلا سمين كرويدد أرقتو إن تبعان أتهي دقرق سمين haddaad isagana samayso kordhisatana khayrku waa ku siyaadaya walaalayaal ilaahay waxaan ka magan galaynaa inta sharka wada sharkooga bisha saaxirintu aad ayay u dadaalayaan anigaba xalayto ayaa la soo weeraray idamka ilaahay waxaana soo weeraray kuwo magaca gurubadeena iyo astaamihiina isticmaala oo dhowr ah oo walaalo badan guruba ku dara fariimo u qora codsiyo u gudbiya oo markii aan ka daba tagnay aan ogaanay intooda badan inaysan ahayn dad sax ah oo wanaagsan oo hagaagsan walaalayaal shayaadiintu way shaqaysanayaan sida aan sheegnay jin iyo insi labaduba Allah subhanahu wa ta'ala wixii ugu badbaadiyay walaalo badan oo horena ku badbaadiyay baan doonay halkan idin kula wadaago qof kasta oo dareema culays ama qof kasta oo yani la dhibay oo meel aan raali ka hayn la geeyay oo culays dareema qalbigaaga hadduu ku sheego culays inuu jiro oo aad dareento shucuur culus oo aanad hore u lahayn sirtan ayaad samaynaysaa dabadeetana mushkiladda cidii soo aloostay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala dib ugu celinayaa number 1 suuratul faatiha hal mar ayaad akhrisanaysaa kadib waxaad ku xigsiinaysaa xasbiya allahu wa ni'mal wakiil kun jeer
kadib waxaad ku xigsiinaysaa suuratul fiil 100 jeer kadib waxaad ku xigsiinaysaa aayatul kursi hal mar kadib waxaad ku xigsiinaysaa saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waliba siiqada ibraahimiyada qaado waa hal mar marka biidnillaahi tacaala walaalayaal qof kastoo culays dareema inuu cibaadadii ka gaabinayo shaqadiisii ka gaabinayo xasad ama il ama mushkilad ay soo wajahday ama sixirba uu soo wajahay oo ka ugu foga xasadka marka qaarkood sixirka ka darane intan ayaad akhrinaysaa marka suuratul faatiha mar xasbiya allah wa ni'mal wakiil kun jeer suuratul fiil 100 jeer aayatul kursi hal mar iyo saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam siiqada ibraahimiyada hal mar waxaanad akhriyaysaa bacda al-isha biidnillaahi tacaala ilaahay baa ku helinaya joogtee waxaa laga yaabaa maalinta ugu horeysa marka ugu horeysa akhrido inaad isbedel fiican dareento haddii aad wado ugu badnaan 10 maalmood ilaahay wuxuu ku suusi doonaa cid ay ku dhibaataynaysa biidnillaahi tacaala waanad ogaanaysaa mar walba cid dhibaatada kugu haysa oo qalbigaagu ilaahay soo gelin doona walaalayaal waxaad ogaataa qalbiga ilaahay subxaanahu wa tacaala inasi ee nabigu calayhi salaatu wasalaam uu lahaa alaa wa inna fi jasadi almudqa idha salahat salaha jasadu kulluh wa idha fasadat fasada jasadu kulluh yani xubinta uu nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegayay ee jirkeena ka midka ah ee haddii ay xumaatana jirku uu xumaanayo haddii ay fiicnaatana jirku uu fiicnaanayo ee qalbiga ah waa xubin aad u qaaliya indhaheena waa la khaldi karaa caqligeena waa la khaldi karaa laakiin qalbigeena lama khaldi karo qalbigaagu wuxuu kuu sheegay mar kasta waxa saxda ah xumaanta adigoo ku jira qalbigaagu marnaba raalli kama oo indhahaaga iyo maskaxdaada ay qaldoomeen marka walaalayaal waxaan halkan ka digayaa gruubo badan oo magacyo badan sheeganaya inta ka tanaasuli weyday in badan waa la hadlay way ka tanaasuleen inta ka tanaasuli weyday ee magacyada ku sii dhagan aniga ima matalaan astaan codkayga ma yeelan karaan allahumma salli ala muhammad mana matalaan kanaalka barakada saliga nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaan isku dayeen kolba dadka in gruubya lagu daro kolba ma gruubya lagu daro kolba codsiga loo gudbisto kolba calal aqal qaar ku dhaqaale la weydiiyay qaarba wax la weydiisto walaalayaal dadkaasi inama matalaan anigana ima matalaan waanan idinka digay qofkii ka sii mid ahaanaya ama ku jiraya isagay u taalaa laakiin dadkaasi inta aan soo ogaaday dad fiican ma aha xalayna way soo weerareen ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuu iiga hiiliyey xasbiya allahu wa nicmal wakiil walaalayaal waxaa kaloo aan doonay halkan idinkula wadaago walaalo badan oo xanuunada aadka u daran lagu sheegay oo qisooyinkooga aan idiin soo wadno ayaa waxa ay kaga badbaadeen yaqiintay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku qabaan number 1 salaatu leylka ama qiyaamu leylka ay u kaceen ilaahay subxaanahu wa tacaala bariyeen ama qiyaamu leylkaas iyo ducada marka qiyaamu leyl iyo alabari iyo yaqiin ay allah subxaanahu wa tacaala ku qabaan walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala yaqiinta aynu ku qabnaa ha xoogaysato cid wax ku yeeli karaysa shaydaan iyo maxaan ku dhahdaa insi kale iyo wax kale ma jiraan oo cid wax ku yeeli karaysa allah subxaanahu wa tacaala kaliya wax ku yeeli kara walaalayaal sidoo kale ducada aad u badiya waxa kaloo aan halkan ku faraxsanay walaalo badan oo ila soo wadaageen ka bogsadeen xanuunada ruuxiga ahaa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u hiiliyay markii ay qur'aankii adkaarta laasimeen walaalayaal mar walba difaaciinu ha sareeyo aniga xalay mar aan xanaaqay ayaa jaaniskaasi uu soo galo liiga faa'iideystay markii aan dib isku raacay daqiiqada ka hor baan xanaaqay oo wax ka xanaaqay kadibna anigoon dib adkaartii u xidhan oon gaashaanka dib u xidhan baa ay arrimuhu soo gaadheen laakiin alxamdulilah immediately waan istaba qabtay alxamdulilah marka waxaan kaloo ku celinay fariintii ahayd haddii aad taxsiin samaysato adkaarta aad akhrisato oo aad si weyn u faraxdo taxsiinkii wuu kaa burayaa shaydaanku wuu kaa faa'iidaysan karaa haddii aad sidoo kale si weyn u xanaaqdana taxsiinkii wuu kaa burayaa shaydaankiina wuu kaa faa'iidaysan karaya marka walaalayaal allah subxaanahu wa tacaala waxaynu ka baryaynaa dariiqa saxda inuu ina waafajiyo
khayrkeena waafajiyo xaqa ina tuso biidnillaahi tacaala inaguna nafteena aan ku dadaalno inaan ilaahay u dhowaano subxaanahu wa tacaala inta aynu karno waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa aynaan karin culays inagagama dhigin aynu ka faa'iidaysano diinteenna macaan ذكرنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد الكلمات صدح جار لوراني هلقى فايدستو تاني انت برنامج كالاسكوي من الناس توديعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد